madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar ayaa ka hadlay colaadda deegaanka Dacwale waxaana uu yiri waxa jira Raila iyo hadda la dagaalamaya qalfoofkii Siyaad Barre iyagoo aan ogeyn inuu Siyaad Barre dhintay xilli hore oo uu talada dalka ka tagay 34 sano ka hor. Mustafa Cagjar asagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku sii daray ciidanka deegaanku ciidan qabiil maaha waa ciidan ka soo wada jeeda dhammaan 12 gobol ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. ciidanka Dacwale ku dhintay waxay ka soo jeedaan dhammaan gobolada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. aydin kala baxo Mustafa Cagjar iyo hadalkiisa oo dhameystiran. waxaan rabaa inaan kelmado ku saabsan nabadda iyo midnimada iyo ahmiyadda leedahay uga faa'iideysto fagaarahan maanta. nabadda iyo midnimada si balaaran baa looga hadlay. midnimada maanta aan haysano ee deegaan ahaan iyo nabadda deegaanku uu haystay haddana uu haysto marka laga tago dhacdooyin haddana dhacay horeyna u dhacay mustaqbalkana dhici doona. in nabad la haysto kuma xidhna iyo inaan la haysan kuma xidhna inaan dhacdooyin ayna dhicin. suurtagal maaha bini aadam nool oo meel ku wada nool inaan dhacdooyin ku dhacayn. falal argagixisaa dhici isku dhacyaa dhici waa qayb ka mid ah nolosha bini aadamka. inaan nabad jirin waxaa calaamad u ah marka halkii laga rabay dhacdooyinkaas la gaari waayo ay timaado nabadgelyo la'aan baahsan oo xilli dheer socota ama faafta. laakiin dhacdooyinku way dhacayaan sidoo ay ku yimaadaan tala xumo dhinac kasta ha ku yimaadaan. waxa marka aan sheegayaa in maanta midnimada hogaaminta ee deegaanka Soomaalidu uu ka muuqdo midnimada ciidanka booliska iyo hay'adaha amniga inoo dhisan. midnimada hogaaminta in badan ka hadli jirnay fagaarayaal badan ma 6 sano u dambeysay kaga hadlaynay. waa midnimo aan qasab ahayn midnimo aan ku salaysnayn muxuu afka baarkiisa midnimo ku salaysan dan guud oo la wadaago iyo hadaf guud oo la wadaago weey. waa midnimo xaqiijinaysa cid walba oo midnimada raaliga ka ihi wixii ay ka raadinayso inay heliso. hadday amni tahay hadday tahay nolol hadday tahay qaybsi siyaasadeed midnimo cid walba ay ku qanacsan tahay waa cadaalad iyo maaragtay wax wada qaybsi is ogolaanshaha midnimo ku salaysan baa deegaankeenu ku hormari karaa. wixii dadkii midka ah ee Soomaaliyeed ee dalalka xorta ah haystay xaggooda ka suurtoobi waayay inaan xaggeena ka suurtagelino yaa loo baahan yahay. deegaankeenuna uu tusaale iyo faraj u noqdo dadkaas haybta isku eryanaya ee ilaa iyo hadda karila ciidan meesha ay samaystaan inaan kuwa tusaale u noqonaa la rabaa. taas anoo raacaya waxaad ogtihiin ciidanka liyu boolisku waagii hore la dhisay qaab dhismeedkii loo dhisay maadaama ururo ka dagaalama deegaanka ay jireen meelo kooban ay ku koobnayd hawshaasi bulsho kooban bulshada kooban loo aasaasay in dhibaatooyin badan oo bulshada ay ka sheeganaysa ay jiraan. isbedelka kadib ku dheeraan ma kuwa maadaama aad looga hadlay waxaa laga sheeganayay maxaa in beel gaar ay yihiin waxaa laga sheeganayay in tacadiye sameeyaan waxaa laga sheeganayay maaragtay in xuquuqaha insaanka ayna ilaalin baa laga sheeganayay. lagama sheegin kaliya way jirtayna waxay qayb ka ahaayeen nidaamkii ay hogaaminaysa kooxda TPLF oo ogtihiin dalka oo dhan dhibaatooyinkii iyo tacadiga iyo xaqiraadii ay ku haysay oo arrimaha hadda mudan Ibrahim uu ka hadlay ee ku saabsan dhibaatada nagu qaraxday ee gobolka galbeedka City kuwii noo aasay aha oo ogtihiin. isbedelkii kadib waxaa si weyn looga shaqeeyay midnimo ciidan iyo midnimo siyaasadeed in la sameeyo. maanta ciidankaas haysta siyaasiyiinta halkan fadhida hadday kala dhaqaaqdo wuu kala dhaqaaqaya waa inta la ogaada. midnimada hay'adaha amniga waxaa sal u ah midnimada siyaasadda ee hogaaminta. haddii hogaamintu ayna mid ahayn ciidanku mid ma ahaanayo. kolka midnimadaas runtii aad baa looga shaqeeyay meel fiican way maraysaa. wax u sii dhiman way jirtaa oo saan kolka hore sheegay cadaaladda iyo wax soo ogolaanshaha ayaa aasaas u ah midnimada. kolka cadaaladii iyo wax soo ogolaanshihii wax badan baa weli naga dhiman. tabashooyin badan ma meel badan ka jira kuwa in la sii dhameystiro laga garaawo bay ku xiran tahay midnimadu. kolka ciidankaas saasuu ahaan jiray waad ogtihiin isbedelkii kadib laakiin reform baa lagu sameeyay. xog ahaan ugu yaraan 15 kun oo ciidan la tababaray inta kadib isbedelka maanta ciidanka inoo dhisan boqolkiiba waxa la oran karaa 90
وعيدان عصب ووحى لغا شيكيني عن شقة كلهاي boqolkiiba 90 kolka taadiyo hore oo dhacay looma aanay karo way cusub yihiinba kuma jirinba haba yaraatee waxa kale oo loo aanay karin hayb gaara waxa lagu garanayaa dhacdada dacwalay ciidanka wax ka soo gaareen ee ku dhintay dhammaan gobol ee deegaanka meel kasta ka soo jeeda tiraan marka hadda soo baxdana waa la yaabi doonaa ciidan isku dhafan oo city ka soo jeeda oo daawa ka soo jeeda oo shabeelle ka soo jeeda oo liibaan ka soo jeeda saraakiisha laga garanaya waxa soo gaadhay marka runtii taa waxaan u bayaaminayaa maadaama oo aragti khaldan la faafinayay oo in ma garanaysaa hayb gaara ay adeegsanayso laga dhigay inay taasi jirin in la ogaado ayaa loo baahan yahay arrinta dacwalay degmada Xarshin ka dhacday oo ogaayay in qalbiga aad ku haysaan waxaan ka dirayaa baaq nabadeed shacabka wax gaareen halka degan haday barakac noqoto iyo hadii garanaysaa isku dhici jiray muxuu ahaa wixii ka yimid booliska gaari iyo dadkii la dagaalamayba dhammaan waa dadkeeni inta badan wali waan tuunsanahay dad ka soo talaabay xadka oo jeedooyin kala duwan jiraan inay ku dhex jiraan haddana mar hadii dhexdana lagu dagaalamay dadku waa dadkanagi waa dadkan mas'uulka u ahayn waajib baa naga saaray inaan qancino inaan dhageysano in waxa ay ka cabanayaan aan maaragtay la fadhiisano waajib baa naga saaran awood iyo karti ku filan waa leenahay xukuumad ahaan arintaas waan ku filannahay haddaan ku filan weynana institutionadii kale naga caawin lahaa waan haysanaa culimada diinkii baan leenahay odayaashii dhaqanka aan leenahay aqooyaankii baan leenahay inta haddaan ku filan weyno waxba kuma filin inaan xalino muxuu ahaa arrinta noocaas ay timid shacabka iyo booliska meesha ku nool shacabada nool bay ahaayeen kooxo fidno wadayaala dhibaato ay geysteen ayaa maanta arrintaas ku dhacday waxaan xaggan ka xaqiijinayaa ciidanka liyu booliska hore looga cabanayay day hayb ahaayeen haddeen ahayn cidda ay dhibaatada u geysteen haybta loo aanaynayan bay u badnayd boqolkiiba 90 wixii ay dileen iyo waxay dhibaateeyeen haybta la sheegayeen bay wixii dadka soo gaaray duul buu ahaa sidaas ay tahay maalinkii dhaweeytay ay dhibaatadu dhacday ee u horeysay runtii waxa la yaabo ay ka bilaabatay oo wax laga heshiiyey oo dad badan baa u dhigay dhul isku haysto dhul waa laga heshiiyey waa la dhamiyey maamulada heer degma isaga yimid heer gobol baa isaga yimid odayaashii baa loo yeeray waa la kala qaatay go'aankii waa arintii ugu horeysay ee madaxweyne ahaan anigu subax saddexdii subaxnimo ilaa saddexdii dambe casarkii aanu fadhiyo way hawlaha noocaas ma galo kulli xabiiska nabadgelyada iyo gobolada yaa dhamaysta gobolka faafan waxaa ka ahaan jiray gudoomiye Cabdixakiin halka inala joogo ka warhaya sida loo xaliyay si runtii aad iyo aad cadaalad u ah oo nu arkaynay in tanaasulaad dheeraad la sameeyay haddana waxaa aragtay baa ka dhashay waxay ku timid gogashii nabadeed iyo wanaagii meesha yaalay oo la laaday oo ducifnimo iyo jilaac loo arkay iyo ku timid arrintaasi waxaan rajaynayaa gogashii nabadeed maanta aan dhigaynana inaan macna noocaas aan loo yeelan ciidamadaas halkaa joogay nabadda ilaalinayay tacaddi xun baa lagu sameeyey waa la laayay kooxaha baabulanoo hubaysan baa laayay aad iyo aad baan ugu tacsiyeenayaa ciidamada aad iyo aad baan ugu tacsiyeenayaa dhibaatadaa soo gaadhay ilaahay ha u naxariisto insha allah haddii aan duco barnaamij ducana waa loo qaban doonaa maalmaha soo socda ciidamadaas 6 sano ama 7 sano hadda xukuumaddan jirtay lama heli karo aagaas hadda ay ka shaqeynayeen iyo degmooyinka ay ka shaqeynayeen gabar ay qanjiiriyeen haddii laga soo helo magteedaan bixinayna تعدي هاي نوضن بيو قبل قنشيرين هذه لقاها وتدوها صنود سيدا أيضا أي تاي هايابله مركي dadku isku dhaca sababaha jira awgeed wuxuu doonaa noqdo garoonka bad lagu ciyaarayo ya booliska dadku isku layn karaan in meedkoodii si xun loola dhaqmo muxuu ahaayay dhagaha laga jaro sanka laga jaro xubnaha taranka laga jaro waxaan runtii ay mudnaayeen runtii ma maadaama ay dhibaato ba ay geysaninba si kastaba ha ahaatee
وشعب كودي waxa meesha jooga mas'uuliyadda way saaran tahay inaan arinta xalino waxaan ku baaqinaa nabad aagaasna waxaan u diray doonaa ergooyin kala duwan diyaarna waan u nahay inaan baaritaan qoto dheer oo madax bannaan ku sameeyno wixii dhacay wixii xalay ka soo baxana xukuumaddu ay u hoggaansato mas'uuliyaddeedana ay qaadato waxa kaloo la sameyn doonaa qiimeyn qoto dheer oo maamulada iyo hay'adaha amniga ku salaysan oo iyadana la eegayo wixii dhacay sida u dhaceen arimahaas insha Allah hadii waxaan rajaynayaa ay soo dhaweyn doonto xalka waa hadii eegana aan khalad kale una iman oo gogasha iyo nabadda lagu baaqay aan loo macnaysan si kale wixii dhacay saas u noqonaya wuxuu ka dhacay deegaanka Soomaalida weeye dawacale waxa la mid tahay shinile maanta aan joogno kale waa mas'uuliyad xukuumadda deegaanka Soomaalida saaran haddaan anagu xalin kari weyno waa mas'uuliyad dawladda federaalka ee dalka saaran in nala xaliso hadiiba cadaalad aan ka sameey weyno inay soo galaan marka ay saa lagu ixtiraamo oo xalkeeda gudaha inuu ku jiro la ogaado ayaan maartay ku baaqayaa dawladda walaalaha nahay ee ka dhisan Somaliland gaar ahaan xukuumadda cusub ee hadda iskaashi amni iskaashi walaalnimo balaaran baa naga dhaxeeya xukuumaddii horena dib kuma aan qabin oo iyadana waan wada shaqayn jirnay eegana waxaan ka codsanayaa inaan taas sii xoojino iskaashigaas amni aan ka wada shaqayno sida aan tuunsanahay hadii ay jiraan xoogag nabadiida oo aaga ku jiraan aan ka wada shaqayno oo iskaashano hadii ayna jirin way soo bixi doontaa hadii la yiraahdo waan ka shaqayn doonaa waan ognahay xukuumaddu inay cusub tahay wali aynan la wareegin dhammaan awoodihii amniga ee wax kaga qaban lahayd hawlahaas laakiin waxaan ka codsanaynaa in la ixtiraamo xuduudaha caalamiga oo lagu daayo arrintan xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida in lagu daayo wixii kale ee talooyina maadaama fagaarayaal la isugu yimaado ay jiraan saxaabada aan la isu marin ee fagaarayaasha iyo xiriirada kale la isugu sheego yaan ka codsan lahayn ugu dambayn waxaan anagu tuunsanahay 1990kii xukuumaddii maxamed siyaad barre ee Soomaaliya ka talinaysa waa dhacday maanta haddaad gashaan social media dhammaan gobolladii Soomaaliya qabaayil baa islaynaya waqooyi ilaa koonfur waxay ka dhalatay ururadii mucaaradka ahaa ee hubaysnaa ee la dagaalamay nidaamkii kaligitaliska ahaa isaguba dhibaato badan dadka ku hayay arrintaasi waxay muujinaysaa in waxyaalaha hadda dhacaya laftigoodu ayna ahayn waxyaalaha hadda bilowday wax salka ku haya taariikhda hore ay tahay nacayb badan oo ku salaysan haybta yaa la abuuray waxaa jira ururo ilaa iyo hadda la dagaalamaya qalfoofkii siyaad barre isagoo aan ognahay inuu dhintay muxuu ahaa xilli hore ama talada uu ka tegey ugu yaraan 34 sano ka hor arrinta dacawalay dadka shidaya qaar ka mid waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwa aan ka hadlay ee ururada ah ee weli aan ka bogsanin dhibaatooyinkii waaga dhacay waxaan ugu baaqaynaa naca iyo qalfoof la dagaalanka siyaasadda ku salaysani inayna ahayn mid horumar iyo nabad gaarsiinaysa dadka Soomaaliyeed way soo rafaadeen gaajo iyo saxariir baa ina dilay adduunka kama inaan dambaynay hadaynu maaragtay ay nabad haysano marka inaan haddana nabadaas xoog la saaro hadallada foosha xun waxyaalaha dadka kala fogeynaya lagu hadlayo dadka waaweyn ee mutaakadkiina iska ilaaliyaan social media dad badan waxa ku jira aan bislayn laakiin odayaasha iyo siyaasiyiintu inay ogaadaan wax kasta oo dhacay la isaga yimaado waxa hadda aad lagu hadlayay xasuuq baa ka dhacay meesha waxa kale oo laga hadlayay ciidankii liiga booliska waa xasuuqno waan ka adkaanay labada arrimoodna midun bay noqonaysaa marka haddii booliskii la xasuuqay maxaa loo xasuuqay oo loo laayeen bay noqon hadday iyagu xasuuqeenna ciddii xasuuqeen ee maatida ah yaynu baariyon wada ogaan doonaa waxaan ku kalsoonahay hal qof oo maatiya oo hubaysane ciidanka la dagaalamay aan ahayn halka inay kaga dhicin waan ognahay waan la soconaa si kastaba ahaatee colaadda laftigeedaba dhibaata hooyada ka barakacda meel ee xitaa dib u baxda ee dhibaatay ku tahay xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin shacabka waa shacabkanagii in aaga shacabka ku nool la gaaro gargaar loo geeyo loo fadhiisto gogol loo fidiyo waan ka shaqaynaynaa waxaan halkan ka cadeynayaa maanta inaan arrintaas in wax nagala qabto maadaama sheegay oo niri waxaan la kaashanaynaa hay'adaha kale ee noo dhisan sida culimada diinka iyo aqoonyahanka